shacbiyeynaha reer Gabiley ayaa maanta si weyn u soo dhaweeyay guushii xulka gobolka Gabiley ay ka soo hooyeen tartanka kubadda kolayga Somaliland. Xulka kubadda kolayga ee gobolka Gabiley ayaa kaga guuleystay koobkii kubadda kolayga ee gobolada Somaliland. Xulka gobolka Maroodijeex ciyaarta ayaa aad u xiiso badnayd isla markaana ka dhacday habeenkii xalay ahayd garoonka Timacade stadium ee magaalada Hargeysa. ciyaartani oo ay ku wada ciyaarayeen xulka gobolka Gabiley iyo gobolka Maroodijeex ayaa xulka gobolka Gabiley uu kaga guuleystay, waxaana gobolka Gabiley uu kaga adkaaday 58 dhibcood halka gobolka Maroodijeexna uu keenay 53 dhibcood, waxaana guushu sidaasi ku raacday xulka gobolka Gabiley. haddaba maanta oo telefishinka Samsat uu dadweynaha reer Gabiley la dhaxmaray mikrofoonka ayaa dadweynaha reer Gabiley waxay si weyn u soo dhaweeyeen guushani ay xulkani ka soo hooyeen ciyaartii habeenkii xalay ahayd ka dhacday stadium Timacade ee magaalada Hargeysa. waxaan la qiyaasi kareyn ayaa halkaas taala oo gobolka Gabiley u taala waana waxaan filaynay yar dhisan oo si wanaagsan u shaqeynaysa oo muushaasi kulay toole arjeenayna in halka gaaraan ay ahayd ayaa halkeedii dhigaan ayaan leeyahay. maanta anu waxaan taageersanay gobolka Hawd filaya in gobolka Hawd guul wanaagsan ka gaari doono sababtoo ah gobolada anagu aan la midka aynay guusha inaan hanaan rajeenayno hadii aan hanan weynay gobolka ayaan taageersanay. markii kolayga ee gobolka Gabiley ayaa xalay soo ku guuleystay koobkii iyagoo mar walba guul isu daba jooga aadayay. waxaan leeyahay hambaliyo qolada laga guuleystay gobolka Maroodijeexna waxaan leeyahay hambaliyo ilaalin yahay lama soo koobi karo. أنا أدي أبغى فرح سنة هاي يوشا هاد كم بلادن هاي سويين نادية كبدا طلعة يعطي الرد قبلي أدي أبغى فرح سنة هاي تيون كفيليني إني سوهين يا يوشا يتعلق وحنا عضينا يسا عياره أي سو عيارين أو أنا مربورة بربر كينين إني بديان موياني هدي أن كان لنا عكلا كبدا عكتا runtii ciyaartooyga ciyaari doona ee Hargeysa iyo Hawd insha Allah waxaan aad iyo aad u taageeraynaa gobolka Hawd. waana faraxsanahay maadaama ay reer Gabiley ku guuleysteen tartankii soo afxirmay xalay ee kubadda kolayga ama baasidka iyadoo haliyada reer Gabiley aan wali la barbarayn oo ay ka ugu yar 20 dhibcood 15 dhibcood 25 dhibcood ay ka horeeyeen xalayna ay ka faramaroojiyeen gobolkii Maroodijeex koobkii oo caasimada ah. aad baan ugu faraxsanahay ciyaartayda maantana waxaan taageersanahay xagga kubadda cagta Hawd ayaa taageersanay. waxaan leeyahay Hawd guul ayaan leeyahay waxa waayo waxaan iska xignaa gobolada kale maxaa yeelay waa gobolada cusub. aniga oo taageerayaasha gobolka Gabiley waxaan taageerayaa ciyaartaan u badinay ee kubadda gacanta waxaan xoog uga xumahay ciyaartooyada reer Hargeysa ee maxay ahaydeen la dagaalamay ciyaartooy sidoo kale rumaantii waxaan u haystay in anaga Hargeysa iyo Gabiley laakiin say ku xorowaaday in aan isku dhaweyn anaga Hargeysa. marka waxaan anigu taageersanahay ciyaarta maanta Hargeysa ka dhacaysa ee Hargeysa iyo maxay ahaydeen Hawda anigu gobolka Hawd baan taageersanahay. waxaan hambalyeeynaa dhalinyarada kubadda kolayga annagoo ah dhalinyarada Gabiley guusha ay ka soo hooyeen xalay toole ay soo hooyeen gobolkooda taasoo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay saak. xulkani kubadda kolayga ee gobolka Gabiley ayaa iyagu intii ay ciyaarayeen ciyaaraha tartanka kubadda kolayga ee Somaliland ayaan marnaba iyaga laga guuleysanin ama aan la barbarayn walow ay habeenkii xalay isu dhawaayeen xagga dhibcaha labadan xul ee u kala ciyaaraya gobolka Maroodijeex iyo Gabiley. haddaba tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee Somaliland oo habeenkii xalay ahayd soo gabagaboobay ayaa xulka gobolka Gabiley waxa uu sidaasi ku hantiyay horyaalnimada tartanka kubadda kolayga gobolada dalka Somaliland. waana markii ugu horeysay ee gobolada cusub ee Somaliland uu gobol ka mid hantiyo koobka kubadda kolayga. waxa uu sidaasi ku hantiyay guushii iyo koobkii ay u tartamayeen xulalka u kala socda gobolada Somaliland. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba, telefishinka caalamiga Samsat, magaalada Gabiley.